wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo maanta hor yimid guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Somaliland ayaa sheegay in warqad ay u gudbin doonaan jaamacadda Carabta taasi oo ay ka dabageyn doonaan warqadda ay dawladda Soomaaliya u gudbisay jaamacadda Carabta ay kaga cabanaysay heshiiska ay wada galeen Somaliland Ethiopia iyo DP World. horta waxa laga hadlayaa waa dekada berbera Somaliland bay ku taala waxaana maareeyo xukuumadda constitution-keena dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale oo arrinka inuu qabsan kartaana ma jirto waan ka warhayaa warqadda insha Allah ana warqad kale ayaan ka dabageyn doonaa oo ma taqaanaa mowqifkeena aanu ku muujinayno xaqiiqdu waxa weeye Somaliland waa wadan jira oo dawlad leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo isoo ka taliya amurihiisa cid ka talisa oo kale ma jirto haddii aynu heshiis la gelin waxaan kula gelinaa sharcigeena kula gelinaa cid kale sharcigeeda kula gelimayno. wasiir Saad Ali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu sheegay inaan wax madmadow ku jirin heshiiska saddex geesoodka ay wada galeen Somaliland Ethiopia iyo DP World iyadoo maalinta bari toolana ay la horkeeni doono golaha wakiilada heshiiskaasi adeer heshiiska wax mugdiya oo ku jira ma jiro heshiiskii hore innakiyo aynu Dubai wada galayna waa sidiisii heshiiska imka qoladan la galay wax weey shareholder agreement baa isagu wuxuu ka hadlayaa shares laakiin concessionist terms ku warkoodii way sidoodii weeye waan soo baaran ku baaskaraad mahadsantiin. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire waxa uu sheegay in muddo bil ay hakiyeen wada hadaladii dhawaan dhexmari lahaa Somaliland iyo Soomaaliya kaas oo ka dhici lahaa dalka Djibouti waxaanu sheegay in muddada kadib ay ka fiirsan doonaan inay wada hadaladaasi amba qaadaan iyo in kale. Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa.